su-aasheedu waxay tahay waxa ka tirsan tahay midowga musharaxiinta yoolkooduna waxa uu yahay in ay maaragtay meesha ka saaraan xukuumadda talada haysa waxayna ka duulaan haddii aysan helin danahooda gaarka in loo noqonayo 1991 caawa fursad baad haysataa dad Soomaaliyeed baa ku daawanaya malaayiin ah raaligelin rasmi ah ma ka bixinaysa halkan oo maleedahay anu kuma jiro 91 cid u laabanaysa waana ka laabtay raaligelin baana ka bixinay ka sugayna داير محمود قال له waxaan rabaa inaan weydiiyo xilliga aad joogtay safaaradda Sacuudiga waxa lagu eedeynayaa inaad qabyaalad aad ku maamushay shaqaale cusub aad ka qaadatay caasimadda markii lagu magacaabay arintaas maxaad uga jawaabaysaa oo aad ka leedahay inta aad safaaradda Sacuudiga aad ambassadorka ka ahayd waxaad ahayd wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxaad u qabatay wariyaashii Soomaaliyeed intii aad xilka haysay inta aadan u gudbin xil Soomaaliyeed aad madaxweyne Soomaaliyeed aad noqomaasanta safaaradda waxa qonsuliyadda waxa darawaliinta waxa ninka xilka aan ku soo wareejiyo si hayaha waxa waxaan ku raada xogeyntii waxa qonsuliyadda waxa qonsulka waxa dadkii Soomaaliyeed ee garaaleyda had waxa geelle waxa ku weydiisay dalka dagaal baa ka dhacaya civil war muddo sanadoodna dadku waa kala maqnaayeen kalsoonida aad uma ahayn hirgelin murashaxiinta badankooda waxa ka soo baxaya hadallo yaryar oo baqdin oo dadka baqdin galilaya badankooda oo ku dhawaaqaya sidii loo kala tagi lahaa marka hadalladaas dad badan waxay u qaadanayaan inay dhalin doonto in dib loogu noqdo dagaaladii iyo burburkii hore marka mudane waxaan ku weydiiyay mar haddaad isku dagaantiin 90% dadka xamar ay dadka iska raxaya hadalladaas ragga qaarkood ka soo baxaya ee ummadda Soomaaliyeed baqdin iyo kalsooni darri galinaysa intaydan u gudbin madax baan noqonayaa iyo waxan baan qabanayaa waxa ila fiican kalsooni ma isku timaadeen oo inaad dadka ka abo dhexdooda ka abuurtaa oo ka hesha baqdin baa dadkii ku jirta hadallo badan oo dadkii didinaya jira marka anigu waxaan horkaa ilaa kalsooninku nimankiina murashaxiintii inaad isku mashquulshaan oo wada fashiisataan oo dib isku qabataan oo aad tiraahdo waxa aynu joojino taas isku dayda inaad iswaanisaan dagaalka sokeeye haarihiisa waa dadka dabcan ku yaalo murashaxiintiina meel baad u badan tihiin murashaxiinta markay meesha u badan yihiin wax kala waxa si dhinac raac hadal xanafle oo marka qaarkood u yimaado ma iska weydiisaan hadalladaas dadka say dhibayaan in hadalladaas laga leexdo dagaal sokeeye dhibaatadiisa qof kasta oo Soomaaliya ayuu taabtay wixii ka dhacay oo dagaalka sokeeyahay aad iyo aad u xumahay dagaalka sokeeye waxa uu dhacay aniga anoo dalka ka maqan arday ah tala aan ku yeelan karin maantay boogihiisi dhayidiisa kaalin ku yeelan karaa waxaan u taaganahay waxa waaye meelo badan oo boogaha laga damqiyay oo ay ahayd in laga daaweeyo inaan damqintiina ay saabto daaweyntiina aan ku dhaqaaqo oo aan meel mariyo hadalka xanafta leh dadka Soomaalida ama siyaasiyiin ha noqdaan dad hoggaan rabo ama ha noqdaan qof caadi waxaan kala taliyaa ku waaniyaa mikrofoonka uga faa'iideysanaa wax kasta oo qofka Soomaali qalbigiisa damqin karo ama niyadiisa jabin karo laga fogaado hoggaanka dadka siyaasadda hanka siyaasadeed leh habka wuxuu sheegaya qofka kala batashado laakiin famruun xajiiju nafsi nabi sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa jiro Muslim iyo Bukhari warinayaan oo nabiga uu kaga sheekaynayo masiix dajjalka markuu yimaado wuxuu yiri hadii uu yimaado anigoo nool ana la doodayo in dhahara wa ana fiikum fa ana xajiiju duunakum ana la doodayo beentiisa sheegay wa in dhahara wa laysa fiikum famruun xajiiju nafsi hadii laakiin marka aniga ilaahay oo sida ka bacdi dajjalka uu yimaado famruun xajiiju nafsi qof la arka asaga raba inuu tiiso doodo marka hoggaanka nabadda siyaasadda dib u heshiisiinta dagaalka sokeeye arabkayga aniga xukuma dagaal sokeeye lagu noqon maayo waa ka xunnahay cadaab waaye reer Lebanon baa waxay yiraahdeen al-harb al-ahliya bila buduula dagaal sokeeye dirac malaha ee hal ogaado ay yiraahdeen dagaal sokeeye dirac malaha ku noqosho malaha ka shidaal qaadasho malaha isku goodin malaha propaganda been oo dagaal sokeeye la wada yiraahdo dawlad ku shaqeysana ma fiicno tan hadda joogtana saasi sheegtaan
fadhigana waa salaamaya waxna waa su'aalahayna guda galo sharaxa anu su'aalaha ma weydiyo waxaan jeclahay su'aalo iska khafiif oo soo dhaweynaya inaan weydiiyo mudane meesha u socoto waa dareemaysaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo lacagta shilin Soomaaliga oo aan lahayn waa dhimatay qiimo ahaan bay u dhimatay qaarkeedna 100,000 haddii la kala saaro hal xabo laga qaato male shilin Soomaaliga waa lacagtii aan lahayn qorshaysan dalku lacag u yahay shaqo ku jirta وسؤال كواد سؤال شيء والله مدحوينه مركو غوليستو وفي السؤال فروس ما انت كحكت ايوب بلا كامبين وكسو نقوها تيران كحيغا عدا بدليسا ظاهر waxa uu yiri lacag Soomaaliyeed daabacadeedu maxaa ka aqoonaysa lacagta Soomaaliyeed dadka Soomaalida waa lacagtu waa hanaan wax lagu kaydsado oo qiimo lagu kaydsado ama deeq lagu kaydsado ama dadaal ama shaqo lagu kaydsado wixii hadii ay burburaan qofkii lacagiisa waa meesha ka baxday way macnaha guri ama raashin ama beer ama tacbatay oo ka gubatay oo kala waa hadii lacagti valid ma aha lagu yiraahdo ama kaamil mishay ka baabaa lacagta Soomaaliya dhibaatooyin badan ay soo martay markii dawladda dhexe ay meesha ka baxday kadib waxa dhacday marka qaarkood lacag dawladdu soo socdo mar la keeno waa jireen dawladda Soomaaliya hore wana la dhihi jiray markii dambe adeegii ka baxday si faarsa loo soo dhaawacay way baabaa waxa jiray lacag kale oo u eego shilinka oo meel kale laga soo dhaawacay dawladdii Cabdiqaasim lacag waqtigeeda la soo dhaawacana way jireen inta ka dambeysay lacag la soo dhaawacay deegaanada qaarkood xitaa lacag lagu dhaawacay lacagaas la dhaawacayna habka loo dhaawacay sharci ma ahayn markii si dambe waxa jiray dawladdii waqtiga Sheekh Shariif in dawladda Suudaan ay tir lacag waa idin dhaawacayna wasiirka maaliyadda uu tagay agaasimiga bangiga dhexe markaas uu tagay lacagta hadda ka gadisan oo calaamado kala leh ay lagu heshiiyay oo ay dhaawaceen lacagaha la dhaawacay iyagoo diyaar ah ay dawladda Soomaaliya diyaar u ahaayeen laakiin xiriirro badan iyo siyaasado badan oo isbedel awgeed iyo wixii hore laga leexdo la jecel yahay dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin ayaa lacagtii oo noo dhaawacan qaado weyn oo meel marsan weynay marka waa lacagtii dadka Soomaaliyeed gacanahooda ay ku sii misqaysan dib badan ee dadka Soomaaliyeed arkaa ka soo maray xanuunka waa ogahay in lacag loo dhaawacay inay daruuri tahay waa ogahay see loo maraa waa siyaasad u baahan bangiga dhexe khubarada Soomaaliya kaalmada hay'adaha dawladda Soomaaliya kaalmeeyo in laga arsado oo hab cilmiyeysan oo fadhiso looga doodo waa gartaan Soomaaliya marka dadka bangiga dhexe noogu arursan oo aqoonta leh ayaa kala tashanayna jidka loo maraa laakiin lacag in loo baahan yahay oo dadka Soomaalida ay ku dhiban yihiin walwal qabaan shilin Soomaali qofka hayso caafimaadka isru fiicnay gacan ku haynta waxaan ku yiraahdaa dhibaatooyinka isu socodka dhaqaalaha kobciis intaas oo idin aqoon ahaan loo qaama see loo daawaca calaamadaha see laga dhigaa waa technical dadka noo soo bartay oo aqoonta u leh oo noogu magacaaban oo mushaaradaha ku qaato ayaa kala arrinsan doona taan ka baxo sagaalkii madaxweyne iga horeysay madaxweyne farmaajo hadda dhunsan baa Allah ka dhigay qof loogu celiyay malaha sagaalkii madaxweyne horeysay oo la soo maray nin dib loo doortay ma jiro soo saasay sagaal dhacdo haddaan wax ka baro waayo waxaan u ekaanaa arday damiin ah ee student aan ahaan jiray damiin aan noqdo mar raba aniga ma ku mashquulahay taas